Shahwada taranka ragga oo boqolkiiba 50 yaraatay adduunka oo dhan. Cilmi baaris tilmaamayso shahwada ama abuurka ragga sanad walba 2.6% in ay sii yaraanayso ayaa la soo bandhigay. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee wararka Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee wararka mar walba waxaan idinkugu soo gudbinaa arrimaha sayniska, teknoolojiyadda, difaaca, caafimaadka, siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo wixii la mid ah. Haddaba maanta anagoo idin soo gudbin doona warbixinta caafimaadka la xiriirta ee xiisaha leh. Intaanan u guda galin, fadlan marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan like saartaan, share, follow iyo subscribe ahdaan channelka iyo page-ka Gaacar Media Tube ee aan ku kala leenahay YouTube-ka iyo Facebook-ga. Waa mahadsantiin. Aan ku bilowno. Siyaraanta hoos u dhaca shahwada ama biyaha ragga haddii gargaar caafimaad la'aan sidaan ku sii socoto in dhalmo la'aantu badanayso ayaa la sheegaya. Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in tirada ama shahwada biyaha ragga hoos u dhac ku timid caalamka oo dhan. Dhalmo la'aanta bini'aadanka haysata arrinka ugu weyn in ay tahay ama la xiriirto hoos u dhaca ama yaraanta sida degdega ee shahwada ragga in ay tahay ay saynis yahanadu sheegeen. Hal qof oo caafimaad qaba oo nin rag ah celcelis ahaan xilliga isutaga galmada wuxuu sii deynayaa 20 milyan mililiter ilaa 150 milyan mililiter oo shahwad oo biyaha ragga ah, iyadoo cilmi baarayaashu ay tilmaameen si dumarku uurka ay u qaadaan in loo baahan yahay ama ay ku filan tahay shahwada ragga oo xadidkeeda uu yahay 40 milyan mililiter ilaa 50 milyan mililiter. Cilmi baarayaasha ayaa sidoo kale sheegay boqolkii sano ee ugu dambeysay in ay hoos u dhaceysay ama sii yaraanaysay miraha abuurka ragga ama shahwada ragga adduunka oo dhan, sida warbaahinta Euronews ay daabacday. Cilmi baaristan ayaa laga qabtay 53 dal oo adduunka ka tirsan, iyadoo 53,000 oo wiilal ama rag ah cilmi baaristan lagu sameeyay oo ay ka qayb qaateen, iyadoo xoogga la saaray si qoto dheerna loo darsay macluumaadka iyo xogaha la xiriira hoos u dhaca ku yimid tirada abuurka miraha ragga ama shahwada ragga, waxaana lagu ogaaday boqol sano ka hor siday ahayd shahwada ama abuurka miraha ragga markii la barbar dhigo qayb in ka badan hadda in ay hoos u dhactay ama yaraatay. Sida warbixinta lagu xaqiijiyay, wiilasha ama ragga ku nool qaaradaha Koonfurta Ameerika, Aasiya iyo Afrika in shahwadooda hoos u dhac ku timid ama yaraatay ayaa la sheegay. Hadda ka horena waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Australia dhibaatada noocan ah in ay ka dhacday ayaa cilmi baaristan lagu cadeeyay. Waxaa la sheegay haddii ay yaraanta ama hoos u dhaca shahwada ragga sidaan ku sii socoto si lamaanayaasha ubad u dhalaan in ay u baahan yihiin gargaar caafimaad. Cilmi baaristan waxaa lagu soo bandhigay jaamacadda Hebrew University, iyadoo kooxda cilmi baaristan uu hormuud u yahay Professor Hagai Lavin, ahna cilmi baaraha waaxda caafimaadka dadweynaha ee Hebrew University ama jaamacadda Hebrew. Haddaba Professor Hagai Lavin ayaa yidhi sidan: yaraanta ama hoos u dhaca shahwada miraha abuurka ragga waa caqabad haysata damiirka bini'aadanka oo gacanteena ku jirta. Cilmi baaristan waxaa kale oo xubin ka ahaa Professor Shana Siwan oo cilmi baara ka ah dugsiga caafimaadka ee jaamacadda New York ama New York University, iyadoo Professor Shana uu yiri sidan: hoos u dhaca ku yimid shahwada ragga hadda ka hor waxay ka dhacday waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Australia, balse hadda dhibkan wuxuu gaaray oo uu haystaa qaaradihii kale. Gaar ahaan 50kii sano ee lasoo dhaafay, xaddiga shahwada ragga boqolkiiba 50 ayay yaraatay ama hoos u dhacday, ayuu sheegay Professor Shana. Professor Shana oo hadalka sii wata ayaa yidhi sanadkii 1973 ilaa 2018 inta u dhaxaysay, halkii wiil celcelis ahaan 1.2 boqolkiiba ayay hoos u dhacday shahwadiisa, ayuu yidhi. Laga bilaabo sanadkii 2000 sidoo kale
sanad walba 2.6 ayay sii yaraanaysay ayuu yidhi Professor Shana. Sidaas darteed shacabka adduunka sida isbeddelka cimilada oo kale hoos u dhaca ama yaraanta ku timid shahwada ragga ama biyaha ragga in ay jirto in ay aaminaan oo ay ka shaqeeyaan xal u helidda dhibaatadan ayuu ku baaqay Professor Shana. Warbixinta cilmi baaristan ayaa lagu cadeeyay hal qof oo caafimaad qaba xilliga isu tagga galmada xaddiga shahwada ragga uu sii daynayo 104 milyan mililiter ilaa 49 milyan mililiter ayay hoos u dhacday ayaa lagu sheegay ama la sheegay. Inkastoo sababaha keena yaraanta ama hoos u dhaca shahwada ama abuurka miraha ragga aan lagu soo darin ama si fiican aan lagu qeexin cilmi baaristan, haddana arrimaha sida isbeddelka cimilada, faafitaanka cudurrada taranka la xiriira, kiimikada kala duwan, isbeddelada xeeladaha nolosha, sababaha ugu waaweyn in ay noqon karaan ayaa la tilmaamaa. Haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, warbixinta xiisaha badan ee la xiriirtay caafimaadka ee yaraanta ku timid ama hoos u dhaca ku timid shahwada ragga adduunka, intaas ayaan idinkugu soo koobaynaa. barnaamijkeenan kan xiga intaanan ku kulmi doono nooli kulante, aad baadna u mahadsantihiin.